guuleystay halkan waxay isugu jiraan degmooyinka gobolka Banaadir degmo kamid ah oo jadwalka ku qorneed isqaan waa degmada Daynil wasaaradda duulista iyo hawada dalka Soomaaliya oo hogaaminaya agaasimaheedii iyo wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda labada wasaaradood waxa weeyay dhalinyaro tusma la yiraahdo oo soo shaqaynta ayagana maanta waqti dhisay goobta sida ay arkayso waxa laga qabto hoob badan maaha tiyaatarka sheegayda weli moodaa masjidka koraya kaliya waxa jira xafiisyo oo soo ilaa fartameeya kulli waa la hagaajiyay way dhameystirneen waxa jiro qaybtii korontada in kulli aan dhameynay qaybtii bilaacadaha iyo musqulaha kulli way dhameystiran yihiin qaybtii tubooyinka iyo biyaha jaranjarooyinka waxa dhiman dadkii kore kuraastii lagu fadhiisan lahaa iyo meesha ay ku heesayeen soo dhawow adiga inta kulamida waxaan ka rabnaa inay xamar imaadaan nala shaqeeyaan noo soo gurmadaan nagana noqonin dadka aan wacyigelina daaray dadka aan wacyigelino rabo inay hore u socdaan ay rabin inay dib u noqdaan waa maasanta habal ku soo dhawow salaam calaykum. Thank you so much Adil Macaan dhammaantiin waan idin mahadcelinayaa maanta isku jabnay oo isku daalay saakan halkaan imaateen aniga naftirkeyga diyaaradeyda bilay noqotay waxaan idin mahadcelinayaa number one soo dhaweyntan quruxda badan jacaylkan sharaftan iyo cisigan oo ku faraxsanahay meesha ku dhashay inaan mar labaad kusoo laabto aragtidiina abshir waxaan leeyahay shaqo wanaagsan aniguna gurab isxilqaana kamid ah soo maasacada waa idin jeclahay annaga naftirkeena qurbajoogatan nahay especially fanaaniinta xamar oo mar kasta la leeyahay xamar waxyaa sida ku tegey waxa aan ku soo dhiirrado oo aan nafteena u soo horeyno waa inaan idinkeeda la faraxno waxaan qabtaanna idinla qabno waa idin jeclahay xamar aadaa ugu xiisa qabaa shacabka aadaa ugu xiisa qabaa dowladda aadaa ugu xiisa qabaa absolutely maanta meeshaan taaganaha waa tiyaatarkii oona weligay arag oo ku faraxsan inaan halkaan imaado inaan caamaanta halkaan ii taagneedina waa idinkaga mahadcelinayaa thank you so much waa idin jeclahay